munaasabaddan oo ahayd mid ka dhacday magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan ayaa safiirada cusub ee Soomaaliya u fadhi doonta wadanka Pakistan safiir Khadija waxay waraaqadaheeda aqoonsiga ku wareejisay mas'uuliyiinta wadanka Pakistan. Safiir Khadija ayaa hore u soo noqotay safiirada wadanka Ciraaq ee u fadhisa Soomaaliya waxayna sidoo kale hore ugu soo shaqeysay shaqooyin kala duwan oo diblomaasi ah ayadoona la filayo in safiirada ee maalmaha soo socda ee gudaha howlaheeda shaqo waxaana markii ay gaartay aqalka madaxtooyada ee wadankaasi Pakistan safiirada halkaasi lagu soo dhaweeyay kooxda abaanbeeda ee ku soo dhaweysay ama halkaasi looga garaacay astaanta labada wadan ee Soomaaliya iyo Pakistan. inta ay ku sugnayd safiirada magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan ayaa waxay kalumo kala duwan ee la qaadatay mas'uuliyiinta Pakistan waxaana sidoo kale ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan.